maxaad ka taqaanaa dhismaha ugu dheer Somaliland? waa sartan dheer ee idiin muuqato oo dhismaheeda ay gacanta ku hayso shirkadda beddeshay dhiskii Somaliland ee Sombrabati. waa dhisme ka kooban 10 dabaq oo noqonaya kan ugu dheer guud ahaanba Somaliland, iyadoo laga binaynayo wadada tagta airportka Hargeysa xaafadda Calaamadaha. tan iyo bilowgii oo dardar aqoon iyo khibrad ku dhisan lagu waday, waxa la filayaa in la dhammaystiro wejiga koobaad sanadka dambe ee 2024, iyadoo muddo bila ah uu socday imika dhismuhu. wuxuu noqon doonaa dhismihii noociisa ahaa ee ugu dhaqsaha badnaa muddada lagu dhammaynayo guud ahaanba Somaliland, waana farsamada cusub ee dalka ay keentay shirkadda weyn ee Sombrabati oo fulisay mashaariicda ugu tayada iyo bilicda wanaagsan dhiska dambe ee dunida la jaan qaadaya. shirkadda Telesom ayaa dhismahan iska leh, iyadoo fulintana ay wado Sombrabati. Sombrabati ka binaysa dhismo kasta oo ku riyoon jirtay degdegsiimo, bilic iyo tayo la hubo. kala xiriir shirkadda telefoonada shaashada idinka muuqda.